Nuurata Allah iyo rikoorka buugga ugu weyn dunida. Nuura waa qoraal u dhalatay dalka Aljeeriya oo rikoor cajiib ah ka dhigtay taariikhda adduunka. Waxay si rasmi ah u gashay bogga Guinness World Records oo ah bog lagu daawaco dadka rikoodhka cajiibka ah soo bandhiga, kadib markii ay qortay buugga ugu weyn ee abid qof bani'aadam ah qoro. Buuggan weyn ayaa noqday mid xiise gaar leh maadaama uu yahay mid ka duwan buugaagta caadiga ah ee aan maalin walba aragno. Maxaa ka dhigay buuggeeda mid xiiso gaar ah leh? Buuggan ay qortay Nuurata Allah waxaa lagu sifeeyay in uu yahay kan ugu weyn dhanka cabbirka, dhererka, iyo mugga qoraalka. Sida lagu sheegay warbixinno ku saabsan, buuggan ayaa ka kooban bogag dhan oo ka badan buugaagta caadiga ah, mawduucyo qoto dheer leh oo taabanaya dhinacyo kala duwan oo la xiriira nolosha, taariikhda, dhaqanka, iyo waayo-aragnimada bini'aadamka. Cabbir ahaan, buuggan ayaa aad uga weyn buugaagta caadiga ah, waxaana loogu talagalay in uu noqdo xasuus qaali ah oo dunida ku hara. Nuura waxay sheegtay in hamigeeda uu ahaa in ay dhiirrigeliso jiilasha cusub oo ay dunida tusiso awoodda qoraalka iyo fikirka. Waxay sanado badan ku bixisay diyaarinta iyo qorista buuggan, iyadoo ku shaqaynaysay rabitaan xooggan iyo karti aan caadi ahayn. Ka mid noqoshada Guinness World Records waa guul weyn oo u soo hoyatay Nuura iyo guud ahaan dalka Aljeeriya. Tani waxay muujisay in hibada iyo hal-abuurka shakhsiga uu gaari karo heer caalami ah haddii si dhab ah loogu dadaalo. Guusha Nuurata Allah ayaa noqotay dhiirigelin xooggan oo ku socota qorayaasha kale ee ku sugan dunida. Waxay tusaale fiican u tahay qof kasta oo leh riyo uu doonayo in uu gaaro, iyada oo caddeysay in dadaal joogto ah iyo isku kalsooni ay horseedi karto waxqabad aan la ilaawi karin. Buuggan ayaa ah mid dunida oo dhan xiisaynayso, waxaana la rajeynayaa in uu noqdo il waxtar leh oo laga faa'iidaysto. Guusha Nuurata Allah waxay tusaale fiican u tahay sida hal-abuurka iyo go'aanka u horseedi karaan rikoodh taariikhi ah oo aan horay loo arag. Qisooyinkani waxayna xasuusinayaan in hal-abuurka iyo hamiga weyn ee qofka ay dunida ku reebi karaan raad waara.